الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. maanta halkan waxaan ku qabanaynaa shirkan jaraa'id oo ku saabsan howlgallo kala duwan oo ciidanka qalabka sida Soomaaliya ay qabteen maalmihii la soo dhaafay. howlgalkaas oo ugu muhiimsanaa mid lagu dilay horjoogayaal waaweyn oo kooxda khawaarijta ka tirsan 10kii bisha December 2025 hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo kaashanaysa saaxiibada caalamka gaar ahaan saaxiibadeen Mareykanka ayaa fulisay howlgal beegsi ah duqayna oo si gaar ah loo qorsheeyay kana dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. isla markaana Jilib waxay xarun istiraatiiji u tahay kooxda Al-Shabaab. waxaa degan hogaamiyaashooda waxay u tahay meesha tababarada ugu badan ay ku tababartaan canaasirtooda iyo sidoo kale meesha laga soo abaabulo farsamooyinka qaraxyada kala duwan oo ay isticmaalaan. howlgalkan waxaa lagu dilay 2 horjooge oo ka mid ahaa kuwii ugu khatarta badnaa ee soo mara kooxdaas, kuwaasoo si toos ah u maamulayay qaraxyada, amniga gudaha iyo howlgallada dibadda. bartilmaameedyadaas waxaa lagu dilay injineer Cabdullaahi Cismaan Maxamed Abuukar oo loo yaqaanay injineer Ismaaciil, iyo Cabdikariin Maxamed Xirsi Qoorleex. mid ayaan u sheegaynaa mid walba wuxuu kooxdaasi ka qaban jiray gudaheeda. injineer Cabdullaahi Cismaan Maxamed Abuukar ama injineer Cabdullaahi Cismaan Dheere ninkal oo loo yaqaanay kooxda gudaheeda injineer Ismaaciil waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 22kii bishii Juulaay 1982. wuxuu waxbarashadiisa dugsiga sare ka dhamaystay magaalada Muqdisho gaar ahaan dugsiga Imaam Shaafici sanadkii 2000. waxa uu 2002 waxbarasho u aaday dalka Suudaan. waxa uu dhigaynayay jaamacadda Red Sea la yiraahdo ama jaamacadda al-Bahr al-Ahmar kulliyadeeda engineering. wuxuuna sanadkii 2007 aakhirkeedii 8 bilowgeedii ka soo qalin jabiyay jaamacaddaas asagoo soo bartay culuumta electrical engineering. wixii intaas ka dambeeyay wuxuu ku soo biiray kooxda khawaarijta 2008. isla markii uu soo laabtayba wuxuuna bilaabay bilowgii horeba ka mid ahaa howlwadeennada ugu firfircoon warbaahinta Al-Shabaab intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa bilowgii 2025 sanadkii hadda dhamaaday. wuxuu madax ka ahaa xafiisyada warbaahinta, farsamada hubka iyo qaraxyada ee kooxda khawaarijta Al-Shabaab. ugu dambeyn sanadkan waxaa madax looga dhigay oo lagu daray mas'uuliyad kale oo ka weyntii tii uu horay u hayay, waxaana laga dhigay maktabka guud ee amniyaadka isagoo weli maamulayay maktabka xafiiska sancada walxaha qarxa iyo hubka. wuxuu ahaa gacanta midig ee amiirka kooxda khawaarijta Al-Shabaab Axmed Diiriye ama Abu Cubayda, wuxuuna loo diyaarinayay inuu noqdo ninka bedeli doona Axmed Diiriye. dowrka istiraatiijiga ah ee ninkani uu ku fadhiyay wuxuu ahaa maskaxdii isku xiraysay qorshaynta, farsamaynta iyo hirgelinta qaraxyada. wuxuu ahaa hagaha warbaahinta xagjirnimada iyo fariimaha cabsigelinta ninka gudbiya. wuxuu abaabulay weeraro iyo qaraxyo xasuuq weyn sababay oo intooda badan ka dhacay
magaalada muqdisho qaraxyadaasi waxaa ka mid ahaa qaraxii ceelgaabta ee ka dhanka ahaa madaxweynaha maarj sanadkii la soo dhaafay 2025 weerarkii godka jilicow oktoobar 2025 qaraxii zoobe 14 oktoobar 2017 qaraxyadii ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad argaha iyo saamaha 4 oktoobar 2011 ex control afgooye 2028 December 2019 qaraxii ku magaca asheeginkii ku magaca dheera wasaaradda waxbarashada iyo zoobe 29 oktoobar 2022 oo kii u dambeeyay ugu weynaayo muqdisho ka dhacay ahaa qaraxyadii hoteelada xarumaha dawladda iyo goobaha shacabka waxaa halkan ku lifaaqan sawirkiisa Cabdullaahi isagoo jaamacadda dhiganaya markuu dhiganaya laga soo helay intii ka dambeysay wuxuu Cabdullaahi ahaa ama injineer Ismaaciil in wajigiisa qariya oo aan loo arkin laakiin ninkaasi waa kaasa ciyaal muqdisho ahaa ninka labaad haddaan sheegno waxaa la dhihi jiray Cabdikariim Maxamed Xirsi Qorleex wuxuu ka tirsanaa qaybta al-shabaab u qaabilsan howlgallada argagixisada ee dibadda ninkan wuxuu ahaa mainly inta badan gudaha ayuu ahaa laakiin Cabdikariim Qorleex wuxuu isagu kaas cagsigiisu ahaa dhanka dibadda ayuu qaabilsanaa wuxuu howlgallo argagixiso ka fulin jiray dalalka dariska wuxuuna sidoo kale ka mid ahaa horjoogayaashii mas'uulka ka ahaa deegaanada Jubbooyin saamayntiisa istiraatiijiga ah ninkan marka la fiiriyo howlgalkan al-shabaab waxaa laga jaray marka loo fiiriyo waayitaanka ay waayeen ninkan lafdhabarkii qaraxyada amniga iyo howlgallada dibadda waxaa ku dhacay jahwareer hogaamineed muddadii la dilay wixii ka dambeeyay waxaa hoos u dhac ku yimid tayada iyo isku xirka weerarada waaweyn sidoo kale kooxdu waxay si ula kaca ay qiran laadahay dilka labadan hogaamiye kooxeed ee ka tirsanaa maleeshiyaadkooda oo muddo 3 toddobaad dhinsana way qiran laayihiin sababtoo tahay waxay ku lahayd saameyn weyn ayay ku leedahay jiritaankooda al-shabaab jiritaankooda laftooda sababtoo tahay maskaxyadii qaraxyada gudaha iyo kuwii dibadda labadiiba halkaas ay ku waayeen waxaan rabnaa halkaan inaan uga mahad celino hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo runtii howlgalkan u ahayd maskaxdii ka dambeysay helitaanka macluumaadka xogta isla markaasna dawladda Mareykanka oo aan uga mahad celinayno inay gacantii fulisay diyaaradaheeda mashruuca argagixisada dirirka la yiraahdo la xiriiray inay ku fulisay meeshaas aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan runtii ummadda Soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa in dadyowgii aan sheegaynay wixii qarax tragic iyo dhibaato iyo dareen iyo cabsi iyo walwal iyo dadka qaarkiis ilaa hadda ay la jiifaan dhaawacyadii ka soo gaaray qaarkoodna jirarkooda ay ku muuqato in ninkii ka dambeeyay oo injineer Ismaaciil ahaa looga aarguday ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii uu geystay wixii qarax ahaa maantana injineer Ismaaciil ama Cabdullaahi Cusmaan hawada laga saaray waxaan rabaa inaan ku darsado ciidamada xoogga dalka waxay runtii wadeen isbuucyadii ugu dambeeyay weeraro gaar ahaan xalay waxaa dhacay operation ama howlgal ciidamada gaarka ee danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka xalay ay ka fuliyeen howlgal gaar ah oo si heer sare ah loo soo qorsheeyay deegaanka Buulo Fuulaay ee gobolka Baay buurxa kabeeriyadeeda oo ka mid ahaa xarumihii ugu waaweynaa uguna muhiimsanaa khawaarijta gobolka Baay degan ciidamada ayaa beegsaday xarumo ay deganaayeen horjoogayaal ka tirsan khawaarijta waxaana intii howlgalku uu socday lagu dilay in ka badan 20 xubnood oo isugu jiray horjoogayaasha madaxdoodii iyo maleeshiyaadka halka ku sugnaa sidoo kale ciidamadu waxay burburiyeen idaacadda dadka lagu wareerin jiray oo idaacaddii Andalus
oo ku hadasha afka khawaarijta oo halkaas ka furnayd iyadana waa la dul tagay xafiisyadeedii si toos ah ayaa loo burburiyey howlgalkan ayaa imaanayay iyadoo 2 maalmood ka hor gobolka Jubbada Dhexe lagu beegsaday waa nimankan odayaasha iyo sidoo kale shalay lagu weerar kale oo ka dhacay wargaadi oo maleeshiyaadka kooxda looga dilay in ka badan 20 sodomeeyo dhaawac culusana ee halkaas kala gudoomeen ayadoo ciidamadeenu ay sutida u qabteen nimankaasi subaxii hore soo weeraray muddo 5 saacadood dagaal socdayna lagu jabiyay meeshan ay ka baxeen waxa sidoo kale ciidanku ay ku hareeraysan yihiin xawaalay agteeda jabad godane maleeshiyaad 500 ku dhow oo muddo 7 hareeraysan oo loo bandhigay inay soo dhiibaan oo aan rajaynayno in haddii ay soo dhiibi waayaan meesha laga saari doono iyagana ciidamadu iyaduna way ku hareeraysan yihiin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inaan warkooda keenno waxa sidoo kale jira gobolka Bakool howlgallo isbuucii hore laga fuliyay oo khawaarijta sodomeeyo ka mid ah halkaas looga taqalusay guud ahaan ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qaranka Soomaaliya noocyadooda kala duwan waxay wadaan weeraro toos ah iyo kuwa beegsi ah oo kooxaha khawaarijta lagu jabinayo waxaanay khawaarijta bishii la soo dhaafay baan dhigi karnaa gaaray khasaarihi abid ugu badnaa oo dhinacyada kala duwan ama hogaamiyaashoodii qaybo ka mid ah ay waayeen ama kooxoodii u waaweynaa way waayeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ciidanka waa u hambalyeeynaa guushaas shacabka Soomaaliyeed oo garab taagan ciidankeenana iyadana hambalyo ayaan u gudbinaynaa waxaana leenahay wuu sii socon doonaa howlgallada ka dhanka ah mana jirayo hogaamiye ka mid ah hogaamiyaasha argagixisada haddii Cabdullaahi injineerkii ugu weynaa uu fakan waayo hogaamiye ka fakan kara indhaha dawladda Soomaaliya iyo dawladaha caawiya ma jiro nin walba kii dheerna waxa lagu tagayaa meesha uu joogo kan dhowna ciidamadu waa ay ku toos baa lagu tagayaa waxa sidoo kale aan ilaaway howlgalka ka socda Marka iyo Muqdisho dhexdooda oo meediyaha mar dhawaan wadi doono geyn doono tuulooyinkii iyo magaalooyinkii waaweynaa dhanaane gandarshe dhulkii muddada dheer ay joogeen oo badan ay ka joogeen oo magaalada Muqdishona cabsi gelinta ay ka wadeen dadka Marka iyo Xamar u kala socdaalayana jidkaas ay u galayeen iyadana jidkaas oo la nadiifiyay oo meelo yar hadda nadiifinta ku dhiman tahay madhow waxaan rajaynaynaa inaan meediyaha u qaadno geyno oo indhahooda ku soo arkaan shaqada la qabtay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo hambalyeynaya ciidanka qalabka sida hambalyo gaar aan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah taliyaha guud oo howlgalladan iyo howlahan oo dhan gadaal ka taaganna runtii wuu ku mahadsan yahay aad iyo aad baan mahadsan